Ku soo dhawaada qaybtii koowaad ee sheekada boqortooyadii Dhurwaaga oo la xiriirta Diiriye oo ka lumay qoyskiisa una galay boqortooyo Dhurwaayadu leeyihiin. Sanado badan ayuu la noolaa cunidda hilibka cayriin iyo la hadalka Dhurwaaga ayuu bartay. Intii uu Dhurwaayada la noolaa waa sheeko xiise gaara leh. Qaybtii koowaadne waxay ku bilaabanaysaa sidaan. Xilliga lagu jiray wuxuu ahaa guga dabayaaqadiisii. Reerkuna wuxuu yaalay goob xas ah oo meel kasta waxaa uga xeeraansanaa kaymo waaweyn oo saa meel kaaga dheer aan waxba laga arkayn. Ayaantaas waxaa da'ay roobkii guga inhiisii ugu dambeeyey. Reerka oo Ilaahay xoolo ku manaysay waxaa u dhalay tiro arigii u xaraysnaaya. In kalene waa la rajo qabay inuu dhali doono. Hase ahaatee waxay hawli ka taagneyd qoolxirka maqasha iyo xero u soo aruurinta baraarka xilliga gabalgaabka ah. Dadka ciidanka ah inta badan waxay ahaayeen kuray waxayna ka tirsanaayeen xirada geela oo meel saa aan uga fogeyn guriga ku taalay. Waxaase hawsha maqasha inta badan loo diri jiray Diiriye oo ahaa 8 jir reerkuna gacan yara u ahaa. Waxaase raaci jirtay walaashii Dahabo oo 2 gu ka yaray da ahaan. Waalidiintooduna labadooda ayay inta isku daraan dhihi jireen ordayo maqasha soo xareeya. Iyadoo ay sidaa arrimuhu u socdaan ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa goosmay baraarkii qayb badan oo ka mid ah. Diiriye waxa uu dareemay maqnaanshahooda gabalgaab cadceedu baalka godka la gashay. Ayaantaas walaashiisii yarayd waa ka soo tegay oo lama socoto. Waxaase soo wajahday cabsi daran oo uu ka qaba aabihii Dalmar oo ahaa nin qaylo badan oo kulul. Haddii la dhaho baraarkii caawa qayb badan baan soo xaroonne dhagay far baa ka dhacaysa. Diiriye inta uu baraarkii xerada keenay intii gacantiisa ku jirtay ayuu u laabtay doonista intii goosantay. Hase ahaatee isla markiiba qorraxdii waa dhacday waana gudcur cirka daruuro culus isku gidaameen. Wax iftiimana ma wato. Dhulkani aqoon buuran uma u lahan. Baqdin darini waa haysaa. Hase ahaatee waxa haatan ugu daran tan uu ka qaba aabihii. Haddii uu xoogaa socday wax baraara waa arki waayey. Markaas ayuu go'aansaday inuu aqalkoodii u laabto. Ha yeeshee waa uu garan waayey dhan uu ka jiro. Waxa uu bilaabay hadba inuu afka meel saaro. Dhulku meel bannaan ma leh oo aan ka ahayn wadiiqooyin yaryar ama laamo laga hodusa mooyee. Diiriye qoyskiisii tuhum baa galay goorta la gaaray fiidkii oo waxaa la dareemay maqnaanshihiisa iyo baraarkii oo qayb maqan tahay. Waxaase la fishay inuu imaanayo ama soo dhow yahay. Marka ay dabaysha geyruhu soo dhacday fiid dambana ay tahay ayaa Diiriye hooyadii Dayaxo walwal daran muujisay. Markaas ayaa odaygii reerku dhalinyaro geel soo dheelmisay daal badani hayo u diray wiilkii maqnaa oo yiri war wiilkii Diiriye ahaa lama hayee ordayo raadsha maanta galabnimadii baa cid ugu wardambaysay. Ayagii hadday hadba kaymihii dhan u qaadeen in badan u dhawaaqeen waa arki waayeen meel uu jaan iyo cirib dhigay. Habeenkaas cid kastoo raadin kartay waxaa loo baxay in isagii iyo baraarkii la soo helo. Nasiib darro se waxaa la helay goor habeen barkii ah baraarkii oo in badan dawacalaysay gaag yar oo ka soo haray. Diiriye markaa socod dheerayn leh ayuu ku jiraa. Baqdin aan la cabiri karin baa haysa. Waxa uu socdaba waxa uu hadba geed ka leexdaba waxay qodax muddaba dan iyo heello kama lahan oo waxa uu raadinayaa garanna la'yahay aqalkoodii jaho u abbaaro. Haatan baraar raadin howli waa dhaaftay oo isagii laftiisii baaba ambad ah. Goor habeenku laba isu rogay ayaa waxaa bilaamay inuu soo hooro roob dhaxan qabow wata. Markaas ayuu wuxuu eegtay meel uu ka jirsado dhibcaha roobka. Waxa uu arkay meel taag ah oo god af weyn leh ka soo jeedo. Kolkaas buu abbaaray dhankiisii oo istaagay meel u dhow. Haddii uu fiirshay waxba waa ka arki waayey. Haddana wuu ku sii dhowaaday isagoo door bidaya inuu roobka ka jirsado. Haddiise uu xoogaa joogay godka afkiisii roobkiina sii badanayo waxaa meeshiis u abbaaray Dhurwaayo raxana oo isla socda. Markuu arkay ayuu is yiri meesha ka carar. Hase ahaatee uma suurtoobin oo dhan walba waa ka hareereeyeen. Markaasna ku soo dhawaadeen ilaa ay dhanka gudaha u soo gasheen godkii. Xaaladaas uu ku jira Diiriye baqdin arrintiisu waa dhaaftay oo waxa uu joogaa nafka samrid. Dhurwaayadii waa ku soo sikanayaan marba marka ka dambaysa. Isna dib buu u sii baxayaa. Haddii uu xoogaa gudaha galay waxa uu dareemay
in godku weyn yahay laakiin iftiinkii yaraa oo dibadda la arkayay lama arkayo. meel kastana waxaa daadsan lafo. tilaabo haddii la qaadane waxaa isku dhacaya lafaha oo sharqan baabaxaysa. ma qaylin karo oo hadalba kama soo baxayo. oohin warkeeda daa. haddii uu xoogaa joogay ruwaayadii waxa ay bilaabeen inay codad kala duwan yeeriyaan waana soo bateen. isagii waxa uu joogaa meel afeefka hore oo godka u dhow. meel gees ah uu miciin bidaya oo isku dhejinaya. meeshu godka waxay saldhig u tahay boqortooyo dhurwaagu leeyahay oo geyigaas ka dhisan. waxaana deganba boqorka dhurwaayada. habeenkaas waxa uuba meesha ku lahaa shir weyn oo ay ka soo qayb galeen dhammaan dhurwaayadii deegaanka ka dhowaa. intaas waxaa noogu dhan qaybtii koowaad ee sheekada boqortooyadii dhurwaaga. la socda qaybta labaad oo aad u xiiso badan. mahadsanidin.